maanta waxaan sameyneynaa fries chicken. Waxaa u baahanahay weel caano ayaan kusoo shubay. Waxaan ku darayaa kaari, filfil iyo cusbo, toon aan soo xoqay iyo basasha boodarka iyo babrika. Bedelka caanaha waxaa isticmaali kartaa sabaadi ama yogurt. Hadda markaan dhammaan caraftii dhan aan isku soo daray, waxaa isticmaalaya chickenka waa chickenka shafka oo aan lafta dhan lahayn. Si isleys u jaray kadibna si dhudhuub ayaa u jaray. Kadib hadda waxaa ku darayaa, waa isku dhex gelinaya si fiican isku walaaqaya muddo nus saac ilaa hal saac camal talaajada gelinaya si oo dhammaan dhexda iskaga galo. Hadda qaybta kale ayaa u gudagalaynaa. Saxankan ayaan soo qaatay. Waxaan ku shubayaa 4 qaado ilaa 5 qaado oo waaweyn oo bur ah. Kadib waxaa ku darayaa 1 qaado iyo bar oo warange ah. Warangada waxay ka saacideysaa in oo chickenka oo saliid ka galin oo saliid oo sadhuuqin oo qaleen noqdo. Waa isla arki doonaa markii aan dhameyno. Kadib waxaa ku darayaa filfil iyo paprika iyo kaari iyo cusbo intaan hore ku soo daro oo kaleeto. Kadib waa isku walaaqaya. Waxaa soo qaadanaya chickenkii oo caraftii dhan dhexda ka gashay oo nus saac camal talaajada noogu jiray. Kadibna hadda chickenkii ayaan soo qaadanay. Si fiican ayuu dhexda iska galay, waqti fiican ayuu qaatay. Kadib waxaan sameyneynaa chickenka hal xabo u soo bixineynaa. Burkaas si fiican dhexda ka gelineynaa. Waa si fiican ugu qaseynaa yani si uu qaleel u noqdo. Waa taqaanay sida loo sameeyo inuu muqarmash noqdo ama xosh u noqdo la rabaa chickenka markaad sameysid. Kadibna waa sameyn doonaa. dabkana muhiim jiddan waa in saliidaada ay saaid u kulaalaanin ay saaid u qabowaanin. Hadday saaid u kulushahay dhaqsi oo burka korka madoobaanaya chickenka kadibna dhexdiisa ceyriin ay noqonaysaa. Kadib waa isku soo noqonaynaa. hadda marka aan soo dhameynay saxankan ayaan kusoo diyaariyay. hal xaba burka soo wada galiyay si fiican ku soo qasay. haddana waa isla aadaynaa dhinacii saliida kuleel saaid ay noqonin, qabow saaidna aysan noqonin, dhexdhexaad ha noqoto marka aad ku dubayso chickenka. hadday taa markii kuugu horeysay aa janaalkeena arkayso subscribe ka saar, gambaleelka furo si muuqaal waliba aan soo gelin oo kugu sugan. waan sheer karey asxaabtaada. fikirkaadana waa inoo muhiim. qaybta comment inoogu reeb. waa mahadsan.
maasha allah. marka aan soo dhameeyno sidan quruxda badan ayuu kusoo baxay. waa ujeedaan siduu u qalalan yahay oo saliid u lahayn. dhexdiisana waa idin tusi doonaa. haddaa ka heshay like saar videoga, nashar garay asxaabtaada. waa ujeedaan sida u qalalan yahay dhexdiisa. warankada muhiim waaye inaad ku dartid burka aad jikinka marinaysid. intii haysata ilaahay ha u barakeeyo, intaan haysana yaa rabbi ilaahay ha siiyo.